gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Saaxil Maxamed Cali Faxle iyo waliba saraakiisha sare ee xisbigaasi ayaa maanta xadhiga ka jaray 4 xafiis oo ay ugu talagaleen in dhalinyarada iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ee magaalada Berbera ay hawlaha shaqo ee xisbiga ay kaga qayb qaataan. waxaan halkaasi ugu horreyn faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha xisbigaasi wadani ee gobolka Saaxil Maxamed Cali Faxle. waxaana ka mid ah hadaladii gudoomiyaha iyo waliba saraakiisha sare ee xisbigaasi sida tan xarig ka jaraynaa dacfad ka mid ah guryaha oo xisbigu magaalada Berbera ka kareystay maanta 4 baan ka jaraynaa insha Allah taala waxa ku xiga 4 kale oo iyaguna wiiga soo socda laga jari doono xariga maanta laakiin waxaan ka jaraynaa 4 waa 8 guryuhu maanta 4 baan ka jaraynaa guriga haweenka ee Daaroole aynu imika taaganahay iyo guriga dhalinyarada Wadajir iyo guriga ururka wax garad iyaguna barwaaqo iyo guriga ururka la yiraahdo gacan libaax iyaguna barwaaqo insha Allah taala guryuhu way soconayaan waxaanay ka mid yihiin horu socodka xafiiskani waa xafiiskii Daaroole xisbiga wadaniga dhabta ah looga furay maanta garabka haweenka sida awadeed xafiiskani waa mid rigliya oo centralize gareyn doona hadii aan la yiraahdo xafiisyada haweenka oo dhan hadii aan xafiisyada aan fureynay saaka ayu xafiiskani kamid yahay waa xafiiskii dhalinyarada ee Wadajir insha Allah taala 4 xafiis oo kale waan furi doonaa oo ay Burca Sheekh laba yihiin iyo mid dibiga iskeega iyo mid shacabka kuwana mustaqbalka dhooban fureynaa bishan soo socota hadii la yiraahdo awalkeeda waxaan maanta joognaa hawshii aynu xadhig ka jaristii baynu wadnay ilaa saakaba waxaynu maraynaa xafiiskii garabka dhalinyarada ee xaafadda Wadajir xafiiskan ma xafiiskii hore garabka dhalinyaradu yeesho waxaan doonaynaa inuu xoojiyo un xafiisyada hore garabka dhalinyarada uga jiray xaafadda Wadajir waxaan kaloo aan doonaynaa maxay ahayd xisbiga wadani waxaan u sheegaynaa bulshada Soomaaliland iyo qolada kulmiye ee maxay ahayd leh wadani doorashadu ka baqanaya wadani doorasho ka baqanaya ma jirtay oo diyaar buu u yahay heer gobol heer degmo ilaa heer xaafadeed oo maanta marayno laakiin se waxa loo turiyaa ummadeena abaarta hayso ee aadka u jilicsan halka ku furayna imika gurigii garabka haweenka ee xisbiga wadani ee gobolka Saaxil waa xaruntiisii guud ee laga maamulayay haweenka waxaan furayn doonaa guryo badan oo kale afku baan uu sheegaa laakiin isha macallina waa nala arki doontaan waa nala daawan doontaan hadii Ilaahay ka dhigo qofku wax qabad buu soo kordhiyaa qofna fadhiid buu noqdaa insha Allah bidmillaahi alkariim waad arki doontaan wacdarahan muujin doona insha Allah bidmillaahi alkariim waa Yaasiin Jaamac Ali har wanaag news magaalada Berbera.